السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل توناسم دولة شدة قيمة هي قدر انت شرفت ونقبضا كسر دوادا ورركي قدام بيه سيدو كلا حالة مقالة الله سعانو دي حرونتا قبل كسولا وررك الدوانا يكسر بحيا مدهارات دي مدونكي دم كدع يقدها مقالة الله سعانو دي حرونتا قبل كسول waxaana habeenkii sagaalaad ka socda magaalada Laascaanood banaanbaxyo waaweyn oo ay dhigayaan shacabka ku dhaqan gudaha magaalada Laascaanood isla markaana ay uga soo horjeedaan dilalka qorsheysan iyo waliba sidoo kale gumaadka shacabka ay ku hayaan ciidanka maamulka SRM Somaliland ee ku sugan gobolka Sool madaxweynaha maamulka SRM Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa halda heegan buuxa galiyay si ciidamada maamulka SRM Somaliland ku sugan gobolka Sool si aan shacabku u banaanbixin isla markaana ku amray gabi ahaanba shacabku inay ka hortagaan dadka shacabka ay ku banaanbaxaya magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool magaalada Laascaanood waxa soo gaaray cutubyo ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada maamulka SRM oo heegan buuxa la galiyay iyagoo gabi ahaanba maanta si rasmi ah u la wareegay goobaha internetka iyo sidoo kale khadadka shirkadaha Golis Samtel iyo sidoo kale Teleson waxa gabi ahaanba la galiyay in ay gabi ahaanba joojiyaan khadka internetka iyo sidoo kale isgaarsiinta gabigeedaba ay khadka ka saaraan ciidamada maamulka SRM Somaliland ayaa xilligan ku sugan gobolka Sool deegaana ka tirsan waxaana ciidankan heegan galiyay madaxweynaha maamulka argagixisada maamulka SRM Somaliland Muuse Biixi Cabdi warar kala duwan ayaa ka soo baxaya ciidamada ugu tiro badnaa oo ka soo baxay dhanka iyo Puntland madaxweynaha ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karash iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa heegan buuxa xilligan galiyay ciidamada Puntland si halkaas looga hortago gumaadka shacabka ay ku hayaan Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Sool ciidamada maamulka argagixisada maamulka SRM Somaliland ciidamadaas oo aad u tiro badan isla markaana ku soo wajahan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool saacadaha la soo socdana si rasmi ah u gaari doona gudaha magaalada Laascaanood ciidamadan ayaa aad u tiro badan waxay wataan qoryaha diroontoodiga u dhacay sidoo kale hub aad u culus si looga hortago maleeshiyaadka argagixisada maamulka SRM oo xilligan gumaad ku haya shacabweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool madaxweynaha ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karash iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa xilligan si degdeg ah u amray in gabi ahaanba shacabka ku dhaqan gobolka Sool si looga hortago xasuuqa Somaliland ku hayaan in halkaas la geeyo ciidamada aad u tiro badan waxayna soo gaareen Faryaale iyo sidoo kale meel aan ka fogeyn gudaha magaalada Laascaanood ciidamadan ayaa la filayaa in dhawaan ay gudaha u galaan gudaha Laascaanood isla markaana si rasmi ah halkaas oo dagaal ba'an uu ku dhaxmaro Puntland iyo sidoo kale Somaliland waxaana ciidamadan heeganka buuxa la galiyay xilligan la filayaa in saacadaha soo socda ay gudaha u soo galaan gudaha magaalada Laascaanood waxaana habeenkii sagaalaad gudaha magaalada Laascaanood ka socda banaanbaxyo waaweyn oo gabi ahaanba waxa si rasmi ah u xidhmay socodka dadka iyo waliba sidoo kale gaadiidka oo xilligan si rasmi ah aan uga shaqeynin gudaha magaalada Laascaanood ciidamadan heeganka la galiyay ayaa la filayaa saacadahan soo socda inay toos u beegsadaan ciidamada maleeshiyaadka argagixisada maamulka SRM Somaliland ee xilligan lagu soo daabulayo gudaha Laascaanood isla markaana shacabka gabi ahaanba loo diiday in diroonkooda ay ka hadlaan dilalka qorsheysan ee maalin walba ka dhaca Laascaanood iyo sidoo kale dadka shacabka xilligan la gumaadayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ilaa 2007 waxaa si rasmi ah gacanta uga haysay maleeshiyaadka maamulka argagixisada SRM halkaas oo shacabka iyo sidoo kale dadka wandar garadka ama wax garadka lagu leyn jiray habeen walba magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa xilligan waxa aad uga soo barakacay shacabka kala duwan ee ku dhaqan shacabkaas oo intooda badan codsanayay inay gabi ahaanba iska baxaan gudaha Laascaanood si halkaas loogu banayo in ay foodeystiraan ciidamada Puntland ee ka soo socda aaga Garowe waxaana gabi ahaanba xilligan laga cabsi qabaa in dagaalka halkaas mar kale si rasmi ah uga qarxo isla markaana gumaad baan xilligan la gaarsiiyo ciidamada maamulka SRM ee Somaliland aynu eegno dhankaayo magaalada Puuhoodle iyo sidoo kale deegaanada ku xeeran magaalada Puuhoodle xarunta gobolka Cayn iyo sidoo kale inta badan deegaanada ku xeeran waxa heegan buuxa la galiyay ciidamada kala duwan ee ku sugan ee Puntland iyo sidoo kale ciidamada jamhadda Tibxoreynta gobolada SAC oo iyaguna heegan buuxa la galiyay si halkaas looga hortago gumaadka ay ciidanka argagixisada maamulka SRM Somaliland ay ku hayaan shacabka ku dhaqan gobolka Sool magaalada Puuhoodle waxa ka baxay cutubyo fara badan oo ka tirsan ciidamada Puntland iyo jamhadda SAC kuwaas oo ku saacadan la soo aadan kusii jeeda magaalada Laascaanood si halkaas looga hortago gumaadka shacabka Laascaanood ay ku hayaan ciidamada jamhadda SRM ee Somaliland magaalada Puuhoodle xarunta gobolka Cayn ayaa kamid ah meelaha inta badan aadka looga dhiidhiyay shacabka lagu gumaadayo gobolka Sool waxaana ciidamada heegan buuxa la galiyay si halkaas ay uga hortagaan isla markaana fooda ay istiraan ciidamada maamulka SRM ee Somaliland ku sugan gobolka Sool ciidamadan ayaa si rasmi ah uga baxay Puuhoodle iyo sidoo kale dhammaan deegaanada ku xeeran isla markaana heegan buuxa la galiyay si halkaas ay u gaaraan ciidamada ayaa haatan kusii jeeda gobolka
Sool waxaa la filayaa in saacadaha soo socda ee caawadan ay gudaha u galaan gudaha magaalada Laascaanood si halkaasi ay fowda isku dari doonaan ciidamada maamulka SNM ee Soomaaliland ku sugan gobolka Sool warar kala duwan ayaa ka soo baxaya mudaharaadyada ka socda magaalada habeenkii sagaalaad si rasmi ah u galay ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool isla markaana shacabka ayaa xilliga ka dhidhiyay dilalka qorsheysan ee SNM ka wada gobolka Sool iyo sidoo kale shacabka lagu gumaadayo magaalada Laascaanood dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya iyaduna ka hadashay isla markaana si rasmi ah Soomaaliland ugu degtay inay marnaba sii wadin gumaadka shacabka Soomaaliland ay ku hayso shacabweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool insha Allah wararkeena dambe si toos ah ugu soo gudbin doona xogihii ugu dambeeyay sidoo kale shacabka lagu gumaadayo Laascaanood iyo sidoo kale maamulka SNM ee Soomaaliland saacadaha soo socda oo si rasmi ah la filayo